waxaa maanta markii labaad la horgeeyay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya shabakadii loo haystay inay soo abaabuleen fuliyeen dilkii Allah u naxariistay marxuumad wariye Hindiye Xaaji Maxamed eedeysanayaasha maanta la hor keenay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo tiradoodu ay gaaraysay 6 ayaa xukunno kala duwan ay ku riday maxkamaddu dhageysiga koowaad waxaa la dhageystay eedii loo haystay eedeysanayaasha kala Abdirasaaq Maxamed Barrow Cadow iyo sidoo kale Xasan Nuur Cali Faarax oo labaduba lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda ugu seekis al-shabaab isla markaana ay ahaayeen shakhsiyaadkii gacantooda ku dilay Allah u naxariistay marxuumad Hindiye Xaaji Maxamed ugu horeyn waxay maxkamaddu dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkoodii kadibna waxay maxkamadda laga hor aqriyay qiraaladii eedeysanayaashu ay ka hor sameeyeen garsoorka maxkamadda waxay sidoo kale maxkamaddu dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareennada kadibna ugu dambeyntii waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya go'aan ka gaartay eedii loo haystay labadan qof ee ka tirsan kooxda ugus waxaana go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Liibaan Cali Yarow markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee 25 bishii 2016 ay ku riday xukuno kala duwan rafcaanayaasha markay dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkooda ay bixiyeen markay aragtay qoraalkii eedeysanayaasha garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay dhageysatay doodii dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareennada oo u dhaxaysay markay aragtay caddeyntii in eedeysanayaashu ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay xukunsanayaal 1 Abdirasaaq Maxamed Barrow Cadow 2 Xasan Nuur Cali Faarax waxay ku xukuntay 1 gacan ku dhiigle shabaab Abdirasaaq Maxamed Barrow Cadow 2 gacan ku dhiigle shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho oo qisaastii marxuumad akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre kadib haddana waxaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Soomaaliya la hor keenay macalin Maxamed Abuukar Cali iyo sidoo kale macalin Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere oo iyaguna kamid ahaa dadkii racfaanka ka soo qaatay go'aankii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markii ay maxkamaddu aragtay qodobada 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku raacday xukunsanayaasha xukunkii ay hore ugu riday maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare Liibaan Cali Yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa mar kale ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda bismillaah alxamdulillah wa ba'd ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka 1 macalin Maxamed Abuukar Cali 42 jir ina Faadumo Cabdulle ku dhashay Shabeellada Dhexe 2 macalin Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere 56 jir ina Awliyo Sheekh Xasan ku dhashay Mudug markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida 25 bishii 2016 kuna xukuntay xukunsanayaasha xabsi daa'im markay aragtay markhaatiyaashii maxkamadda horteeda la hor keenay marag furkii ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii
garsoorka maxkamadda ay ka horbixiyeen eedeysanayaasha markay aragtay caddeynta eedeysanayaasha in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay xukunsanayaasha 1 macalin maxamed abuukar cali 2 macalin maxamed sheekh yuusuf wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im ugu dambayntiina waxaa maxkamadda la hor keenay cali xasan aadan tooni iyo sidoo kale muxyidiin cusmaan maxamed cawaale oo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay ku xukuntay min 5 sano xabsi ciidan ah markii ay aragtay xukunka maxkamadda sare ciidamadu markii ay aragtay marqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay isla markaana lagu hor aqriyay maxkamadda qiraaladii ay ka horsameeyeen garsoorka maxkamadda waxay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka kama dambaysta ujeedada xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka 1 cali xasan aadan tooni 40 jir ah ina aamino rooble jiilow ku dhashay Itoobiya 2 muxyidiin cusmaan maxamed cawaale 22 jir ah ina nasro xaaji shidane ku dhashay xamar markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida la ra ma qa sa eber 3 2016 25 labadii 2016 kuna xukuntay xukunsanayaasha min 5 sano xabsi ciidan ah markay aragtay marqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkii ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay u cadaatay eedeysanayaashu in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay xukunsanayaasha 1 cali xasan aadan tooni 2 muxyidiin cusmaan maxamed cawaale waxayna ku xukuntay 1 dembiile shabaab cali xasan aadan tooni 15 sano xabsi ciidan ah 2 dembiile shabaab muxyidiin cusmaan maxamed cawaale 10 sano xabsi ciidan ah wabillahi tawfiiq 60 qof ayaa ahaa shabakadii soo abaabulay dilkii Allah u naxariistay wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo ka tirsanayd raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka isla markaana dabayaaqadii sanadkii tagay gaarigeeda qarax loogu xiray ayna ku geeriyootay qaraxaas xilli ay ka soo baxday mid kamid ah